kulanti waxaan wanaagsan dhammaanba khayrta hawada naga daawanaysa meel kasta iyo goob kasta ku sugan tihiin kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud Mustafa Cabdiraxmaan Xaddi oo waraysi gaar ah uu la yeeshay telefishinka caalamiga ee STN TV ugu horeynta waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud mudane Mustafa Cabdiraxmaan Xaddi kusoo dhawow telefishinka caalamiga ee STN TV. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kusoo dhaweey walaal aad iyo aad baan mahadsantihiin STV saad ugu timaadeen xafiiska oo nagu soo qaabasheen aad iyo aad baan mahadsantihiin uga mahadcelinayaa intaasi kadib waxaad warbixin naga siisaa xiriirka ciyaaraha fudud waxay soo qabteen tartano ay soo qabteen iyadoo imika bisha Ramadaan inuu soo dhawo waa maxay qorshayaasha ugu yaala bisha Ramadaan. بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال wanaagsan ka xiriir ahaan ciyaaraha fudud orodadu way kala duwan yihiin ciyaaraha fudud waxay soo galaan waxa u kala qaybsamaan saddex qaybood qaybi waa ciyaarihii orodada gaagaaban iyo orodada dhaadheer iyo orodada dhexe marka saddexda qaybood waxa ka sii farcamaya waxa ku jira qalam rugudkiiba ku jira boodadiiba ku jirta tuuritaankiiba ku jira warankiiba ku jira marka ciyaaraha fudud baa isku dhahdaa ka xiriir ahaan anagu xiriirka waxaan noo dhiibay December 2016 ahayd waxaan joognay aduu 5 bilood iyo aduu dhowr maalmood xiriirka waxaan qabanay tartano badan oo tartankii ugu horeeyay markii noo dhiibay waxaan bilownay tartankii marathonka oo bishii labaad dhacay 16-keegii tartankaas oo ahaa tartan international oo ka soo qayb galeen wadannada dunida oo wadannada yimaadeen laba orod baa midna orodka dheer ah buu ahaa 42 kilomitir buu ahaa midna 10 kilomitir buu ahaa marka waxaan ugu talagalay 10 kilomitir dhalinyaradeenna 42 orday ayaa ordaysay 10 kilomitir 42 waxa weeye dadkii ajaanibka inoo yimi marka waxaan ku xigsiinay tartankii kale ee aan ku xilaynay Djibouti oo inoo galay tartanka international-ka oo Djibouti lagu qabto sanad kastaba oo sanadkan aan ka qayb galnay oo orada ahaayeen orodada gaagaaban 800 labada orod bay laba inaan baa inoo qayb galay waxaan sameynay inaan xullo dhalinyaradeenii tartan baan u qabanay oo soo saarnay markaan soo saarnay labada qof ugu wanaagsanaa ee rikoodhka ugu fiicnaa ayaan Djibouti geynay Djibouti markaan geynayna rikoodho fiican baa ka keeneen oo ka qayb galnay meel fiicanna way soo higsadeen dhalinyaradiina waan ka soo noqonnay waxaan u xigtay tartankii aan qabanay degmooyinka oo laba orod ahaa 10 kilomitir iyo 5 kilomitir ayaan qabanay labada tartan baa kala qabanay degmooyinka 8 degmo caasimadda ayaan u qabanay insha Allah taala qorshaha imika degmooyinka waxa jeentay in 8 degmo ee caasimadda aad u qabateen tartano ciyaaraha fudud oo dhinaca orodada midii laba waxaad nooga sheegtaa degmooyinka aad ku qabateen tartanada orodada ee hoos imanaya gobolka Muruujaah. degmooyinku waxa weeyaan waa 26 Juun Koodbuur maxaa qacan libaax maxaa Maxamed Axmed Cali maxaa kooyis takamay sidoo degmo ayaan qaban marka sidii degmo waxa ka soo baxay kaalinta koowaad waxa qaaday oo ku guuleystay 26 Juun marka kaalinta labaad ee qacan libaaxna ka gashay marka laba orod buu ahaa 10 kilomitirka qacan libaax baa waxa galay 26 Juun baa galay xaga kalena qacan libaax waa ka gashay saasoo kala saarnay waa meelaha aan doonayno inaan dhalinyarada ku dhiirigelino oo wax weeyaan ciyaaruhu level isku kala leeyihiin ciyaaraha fudud wax weey kubadda cagta iyo orodadu way kala duwan marka orodku wuxuu kaga duwan yahay ciyaaraha kubadda cagta waa shakhsi kaliya ta ay gol keeni kara halka 32 qof ee kooxdu ay isku duwayeen wuxuu dhigmaa qofkaas uu dhigmaa marka anaga xiriir ahaan waxa noo qorshaysan inaan mabda'an ciyaaraha fudud ee orodada dadka muhiimadda orodkan u fadhiyo fahansiino ciyaartooygu wali may fahmin ciyaarahan fudud geeyigeenan markaan Soomaalida marka la eego laakiin dadkii hore ciyaaraha fudud meel talentii ka gaartay tusaale ahaan markaan eegno rag badan oo orda oo imika adduunka record leh imika Mo Farah oo kale marka la eego Jaama Karaacin marka la eego Cabdi Bire marka la eego rag badan oo ku suntan ciyaarahan orodada talentii fiican bay ka gaareen oo recordka maanta Mo Farah oo kale dad tusaale ahaan soo qaadano maanta waa nin lagu dayaqa oo dawladda Soomaaliland ku soo jeeda
daxalku ku koray ingiriis ku tagay halkaas orodka ka bilaabay wax weey waa nin marka dhalinyaradeenu boqolkiiba boqol waan hubnaa ka xidhiidh ahaan anagu waan hubnaa inay dhalinyaradu soo baxayaan laakiin waxay u saacidayn waxa weeyaan fursadihii ay ku meel tegi lahaayeen waddankeennii waddan la aqoonsan yahay oo dunidii ka mid aha ma aha oo adduunku wax laisku soo bandhigaa dee wax weeyaan tartanada international laga qayb galaa waxaas iyadoo jirin laakiin anagu xidhiidh ahaan waan dadaalaynaa insha allahu tacaala imanka jabuuti baan ka qayb galnaa Ethiopia xidhiidh gooniyaan leenahay wada shaqayn leenahay oo imankaan u dhowaan 16 bisha Ethiopia joogay oo dee xagaasan hawlo shaqo u tagay waxaan ka dhaadhicinay muhiimadda aan u leenahay ciyaaruhuna siyaasadda oo ka madax banaan oo wax weeye ciyaaraha iyo siyaasaddu isma nilma wax weeye ninka orodyahanku waddan kasta uu ordi kara oo meel kasta uu chance geli kara maanta inagu ictiraafka xaggan ka raadinayno dee ictiraafka aan raadinayno ciyaaraha fudud ayaynoo keeni karaa tusaale ahaan markaan eegno adduunkan imanka maanta IAAF waa International Association Athletic Federation halka FIFA taagantahay ciyaaraha fudud bay ku taagantahay marka waxay ciyaaraha fudud internationalkaasi waxa weeyaan haddaan imanka hard record inaan inoo keeno tusaale ahaan 800 ama 500 ama 10 kilomitir oo nin reer Somaliland waddanada amba Ingiriiska ka orda amba dhulkan Carabaha ka orday wala isweydiinay waxa soo leeyahay waddanku ku soo jeeda hadda waddankii baa loo imanaya waddankaas ku soo jeeda marka ciyaartooygeenu dee waxa weeyaan inagu Highlands dhulkeenu waa joog sareeya sida Ethiopia kale waddanada geeska Afrika marka wax ciyaaraha orodada ugu wanaagsan waxa weeyaan waxa ugu wanaagsan Ethiopia Kenya wada aragtay iyo waddanada geeska Afrika waa Sahara waa meelaha ugu wanaagsan ee Highlands marka inaguna ku jirnaa Soomaalidu ka mid ah wax weeyaan rag badan oo aqoon meel kale ka gaaray way jiraan wax cabdi bilowd rasmigiisu u jiray imanka muu faarax baa isna ku xiga rag badan oo ayaa la sulaban oo Djibouti oo orda oo maanta isna magac kula adduunka oo isna dadka Djibouti oo orda jira ciyaartooy ilaa imankaan waxaan ogahay anigu ciyaaraha fudud orodada xilligan soo galay orodyahan baan wax weeyaan orodku ugu horeeyay Djibouti baan ka orday in badan baan Djibouti joogay marka anigu jilib baan ka dhaawacay oo ciyaaraha saasan ugu haray aqoon badan oo leh maanta Djibouti ciyaartooyga u ordo war reer Somaliland chance waxa siiyay inay magaca Somaliland kuma ordi karaan oo waddankii baa la ixtiraafsanay laakiin chance kale helano Djibouti ka orda maanta ragga ugu fiican bay ku jiraan boqolkiiba boqol halkaas oo orda marka waxay dhalinyaradeena waxaan maanta leenahay qorshaha xidhiidhka ciyaaraha fudud yaalla waa in ciyaaraha fudud talent meel la gaarsiiyo ayaa naga go'aantay waxaad sheegtay in wadamada jaarka sida Djibouti iyo Ethiopia xiriir gaar ah leeyihiin weli wax taakula ah ama trainino ama tababaro caynkaasa ma idin ballan qaadeen in xiriir ahaan ay idin siiyaan oo dhalinyar laydin soo tababaro imika Djibouti oo kale aad waxaan doonaynaa Djibouti inaan keeno federationka Djibouti halka jooga inaan Somaliland keeno oo baahiyaha Somaliland yaalla ay nala ogaadaan waxa weeyaan Ethiopia iyagu traininka dhalinyaradooda u diraan dhulkooda cimiladooda oo kale laakiin waxaan kaga faa'iideysanaynaa inagu waxaan haysanaa wadano ugu wanaagsan oo dadka sheekh oo kale waa talent waa Highland marka Highlandkaas isla eegnay inay baahiyaha yaalla populationka Somaliland degan waa dad badan dhalinyarada markaan eegno population badan baa Somaliland degan marka waxaan doonayaa dhalinyarada sidii loo caawin lahaa oo loo furi lahaa camp ciyaaraha fudud oo lagu tababaro tababarka ayaguna ka faa'iidaan dhalinyaradooda xagga Ethiopia ka keenayeen halkan dhaqaalaha ku bixiyaan insha Allah taana wala la qaateen oo insha Allah dhawaan noo iman doonaan Ethiopia ka dalkood Ethiopia waxaan kala hadalnay sidii tababarka macallimiinta dadka soo saaraysa macallin hadaa la helo aqoontii hadaa la helo ciyaaruhu meel way gaarayaan laakiin waxaan naga dhiman aqoontiina marka waa raadinayna insha Allah taala garsoorka imaka Djibouti laba tababarayaalba 10 qof ee noo tababartay gardhoweyd maanta xaad u bushareynaysaa dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland ciyaaraha fudud xiriirka ciyaaraha fudud ku bushareynaya iyadoo ay ugu soo dhowdahay bisha barakaysneed ee Ramadaan inta qorshaha xiriirka u yaalla wax weeyaan inaan sanadkan insha Allah taala kulay ciyaaraha fudud ee wadada oo ka duwan yihiin Ramadaanta anagu wax tartan ma qabano sababtoo ah wax weeyaan wuxuu u baahan yahay qofka Ramadaanta soonka uu sooman yahay qofkii energy badan baa ka baxaya marka orodkii iyo islaama awood karo bisha Ramadaan inay iska cibaadaystaan insha Allah taala ayaan doonaynaa
wixii ka dambeeya qorshaha xiriirka u yaala waxa weeyaan caasimada kaliya tayna ka shaqeyna maaha inaan gobolada imanka waxa noo qorshaysan 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan tartanadii ka qaban doono oo waxweeyaan baraarujin inanka jooga Hargeysa iyo inanka Sool jooga inay isku xuquuqdooda noqdaan baan rabnaa oo tartanadii lagu dhiirigeliyo taana waxweeyaan in ciyaaraha fudud waxweeyaan shirkadaha amba shirkadaha maalgelinaya ciyaaraha inay shirkaduhu fahmaan muhiimadda dhalinyarada ugu dhiirigelinayo inay ka caawiyaan tartanada hadday noqoto inay naadiyada heerka koobaad la sameeyo oo waxweeyaan shirkaduhu inanku magaciisa ku ordi karo shirkadda marka waxaasoo dhan waxweeyaan inay shirkaduhu fahmaan annagu ku xiriir ahaana waxweeyaan dadaal iyo juhdi lagu gelaynaa insha allahu tacaala inaan imanka maalintii dibadda tartanka qabanay ilaa 50 qof soo saarnay 50 qof soo saarnay waxaan ugu talagalnay sidii naadiyada heerka koobaad ugu sameeyay sida imanka bilayska uu sameeyay yahay ciidanka qaranka wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta wasaaradda xanaanada xoolaha caafimaadka ganacsiga marka waxaan doonaa waxa soo dhan ciyaartooyga ku tiirno oo naadiya laga sameeyo xaqa ciyaartooyga isku dhiirin lahaa marka dhalinyarada waxaan leeyahay chance soo badan baan inay haynaa xaqa xiriir ahaan waxa weeyaan inaan sanadkan meesha ka dhaqaajino xiriirku xal ku taagnaa inuu horumar ka gaarsiino waxa bilaadkuna inuu iska hadlo oo hadalka isagoo waxba qabanin laakiin insha Allah taala anagu ilaahay la kaashanayna oo waxa xukuumadana la kaashanayna hawshaas sidii aan u fuli lahayn baan rabnaa xukuumadana waxa fahansiina xukuumadda sarana waxa fahansiina ciyaarahan orodadu in meel laga gaar karo oo magac iyo muqaam aan ku leenahay dhalinyaradeedii marka inaan dhiirigelino sidii aan dhaqaale u heli lahayn dhaqaale waxna ku socdaan insha Allah taala xukuumadda sarana madaxweyne Muuse Biixi Cabdina waxaan xaggan uga jeedinayaa inay dhalinyaradu maanta boqolkiiba yihiin oo waxaan ognahay in dhalinyarada maanta hiib iyo hoob uu la taagantaan ognahay sidii aad u qacan qaban lahayd waxa weeyaan in dhalinyarada annagana barnaamijka aan wadno aan nagu qacan siin lahayd ayaan doon ka wasaaradda wasaaradda ciyaaraha maxaa isna waa nin aad u firfircoon la'aantii ma naqaadna marnaba sidoo nool barbar joogo mar kastaba waxa weeyaan uu ag taagan yahay wixii aan u baahannahay mar kastaba waxa weeyaan intuu itaalkiisa yahay uu taageera marka xiriirka ciyaaraha fudud insha Allah taala uu dhaqaaqay marka dhalinyarada waxaan leeyahay chance badan baa imka soo socda insha Allah taala waxaan doonaynaa imka inaan waxaan la xiriiro imka anigu muu faarxo kala waan la xiriiraa rag badan oo international ka dibadda joogo imka qorshayaal badan baan doonaa waxaan doonaynaa inaan academy weyn oo ciyaaraha fudud aan laga furo Soomaaliland oo ugu talagalo dhalinyarada meesha aan ku soo saarno waxweeyaan marka tartanadii kala duwanaa imanka xiriirku tartanada inaan salayno oo dadka ka degmooyinka sanad kastaba wuxuu dhacayaa bisha 7-ka Abriil uu dhacayaa waa shirkad baan naga qaabishay kan gobolada soo marayna insha Allah daabshi baayadana aad iyo aad ugu mahadnaqayo shirkadiina qayb qaatay ka goboladana insha Allah taala inta rabada gaarin haduu Ilaahay noo suurto geliyo waxaan qabanaa laba tartan baan ka soo qabanaa Sool iyo Sanaag ayaan qorshaheeda imka lagu jirta oo doonna balan marka dhalinyarada waxaan leeyahay waa rabadaanta inta gaarin rabadaanta inta gaarin insha Allah taala oo this weekend insha Allah taala sideen kulba dhaqaale sano inuu baan ku sugeynaa laakiin waa qorshe loo yaala oo inaan qabano ayaan jecelahay boqolkiiba way noo fiiraysaa insha Allah taala marka waxaan doonaa dhalinyarada maanta inay dhiirigelino anagu waxaan ka duwan xiriiradii hore joogaan boqolkiiba waxaan kaga duwannahay wax qabad muuqda anagu 5 bilood joogna 3 tartan oo international iyo dibadda la tagay oo loo baxay wadannada jaarka ayaan qabanay marka inta dhalinyarada anagu waxa weeyaan wax iskama hadalno saxaafadana ma soo fadhiisano laakiin wax qabad la taabanayo ayaan anagu insha Allah taala aan anagoo faanana lahayn wax qabad la taabto ayaan insha Allah taala u banaa marka cid kasta oo xiriirkan amba caawinaysa amba taageeraysa waxaan qacmo furan oo soo dhaweynaa takalax waxaan uga jeedinayaa dadka ehelka sportka ciyaaraha fudud aqoonta u leh cid kasta ahaato waan soo dhaweynaa anagu cid kasta oo u baahan maanta inaan taladooda iyo tusaalahooda iyo waayarnimadooda inaan ka reebno cid kasta oo keeno anagu meeshan waxaan ku joognaa meel aan iska leenahay maaha waa meel ay dadku u dhaxayso bulshada ummadda u shaqeynaa waxay ummadda si waadax oo cadaalad ku jirta ku shaqeynaa dhalinyarada marka dhalinyarada waxa leeyahay maskaxdiina horta wax ka saaraysa inaad horta fahantaan ciyaaraha fudud orodada marka waxay dhalinyaradu ciyaaraha fudud fahmaan wax weeyaan qofku bilaad meel u gaari kara waan hubnaa imanka 2 ciyaal ama 3 ciyaal oo inoo fahmo oo record fiican inoo keena imanka orodadana iska orodana maaha facility badan buu baahan
marka insha allahu tacaala anigu waxaasoo dhan waan diiday doonaa aqoonna waxana uu ku salaysan yahay ciyaaraha orodada mogta aqoon weeyaan akademi baa looga baxaa jaamacad baa looga baxaa layfaluu kala leeyahay macallimiin la soo saaro waxaasoo dhan insha allahu tacaala waxaan la kaashanaynaa qolada internationalka aadam leftiga ayaan la kaashanayna kara oo qorshayaal badan iyo email istaafsanay waxa weeyaan meel kasta albaab kastana waan qaraacaynaa intii anu waan joogno xiriirka ilaahay hadduu na gaarsiiyo iminka guddoomiye waxaad joogteen xiriirka fudud ee ciyaaraha muddo ku sugan 5 bilood 5 biloodna tartanadii orodka waa ku wadnaa waxaad ku qabateen caasimadda magaalada Hargeysa cabashooyin tele ayaa kaga timid gobolada kale wallahi horta wax cabasho naga iman wax weeyaan anagu markaan aragnay inaan caasimaddu basic horta wax weeyaan qofku wuxuu ka bilaabaa caasimadda waxaan ugu bilaabnaa xidh xufaska xafiiska iyadaba ah wax weeyaan maamuldaadin baan sameynayna markii hore xiriirka meel mu gaari jiray laakiin insha allahu tacaala waxaan doonaa goboladu dee xuquuqda ay leeyihiin inanka xagga joogo inuu ayaan ugu fikirnay marka waxa weeyaan wax cabasho naga iman annagaa garanay inaan goboladiina ka shaqeyno oo de waxa weeyaan inanka xagga jooga inaan laascaanoodka amba cayrgaabo jooga ayaa ka rekord wanaagsan doonta marka ciyaaraha orodadu waa in qofkii in la raadiyo qof talent leh oo orodka ku suntan ayaan jecelnahay marka waxay goboladu waan mar horena waan tagnay survey baan kusoo marnay waan soo eegnay 100% gobolada barigu waxa weeyaan cayrgaabo marka la eego waa Highland iyo Sheekh boorma laftirkeedu waa Highland oo orodyahanadu 3 meelood ka soo baxaan marka waxa weeyaan 3 meelood si ilgooriyan ku dheegaynaa oo dad weeyaan tababar haday noqoto haday trainer noqoto haday tartan noqoto insha Allah taala sanadkan marka imika Ramadaan tuu inoo dhamaatana de waxa weeyaan balaanka oo bedelayna maamulka jimba sameeyna marka hore xiriirku wuxuu ka jiro caasimadda laakiin imika maamul xiriir waxa jira xiriir local marka halka xiriiradii localkii wax weeyaan ka gobolka boorma ninka noo jooga waxa weeyaan gudoomiyaha noo jooga xogaya noo jooga gudoomiyaha xogaya noo jooga imakan maamulada jidii sameeynay wax weeyaan gobolada marka tartanada iyaga iskood u qabsanaya gobol kastana tartanada aan ka qabanayna maanta waan salaaynaa oo wax weeyaan imaka shirkadda dahabshiil ayaa naga maalgelisay tartanada 6 gobol sanad kastaba uu dhacaya xilliga uu dhacaya insha Allah taala marka waxaan doonaa goboladu inay iyaguna muhiimadda ciyaaraha fudud madaxda goboladu fahmaan orodka muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada waa meesha kaliya inoo furan ee caalamkan aan magac iyo itiraafka ku heli karo marka waxaan ku soo jeedaa jaaliyadda dibadda joogtana waxaan xakan maanta uga faa'iideysanayaa inay dhalinyaradooda soo caawiyaan oo hadday qalab noqoto wixii ay ku soo tiri karaan cid kastaba gacan furan baa kusoo dhaweynaa caawiyaan shirkaduhu kadaalika shirkadaha inta fahamtay ciyaaraha mooyaan inta kale inay dhalinyarada saas oo kale oo caawiyaan oo waxa weeyaan inay subortareeyaan oo dhiirigeliyaan mar kastaba xukuumadana xataa waxaan uga jeeday inay ciyaarta muhiimadan aan waxaan fahmaan nala fahmaan oo waxay nala shaqeeyaan insha Allah taala waan hubnaa inaan la shaqeyn doonaan hawshan nala wadayaan marka hawshaas intaas kusoo kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud مصطفى عبد الرحمن حدي وحوريس كان يدين ده دحري يعني مصطفى أحمد سمكار أنت عن وريس كان بدل من الحب بينه وحان دحري كذا يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.